وإذن سلام صاحبيال maanta waxa kula seedoona filim aad u xiiso badan oo magaciisa The King of Warden waxaan rajeynaa inaad ka heli doontaan inta muuqaal guda galin wax ku xasuusinaya in muuqaal click saartid hadaa ku cusubtaa channelka subscribe soo saaro gambaleelkana furo filimkan wuxuu bilaabanaya sanadka ku ahaa 1452 boqorkii boqortooyada ka talinaya xilka waa laga qaaday waxaana lagu eeday inay khiyaano ay sameeyeen asiga wasiiradii daacad u ahaana banaanka lagu inqaabay boqorkan gudaha ayuu ku jiray inqaabtii la marsiinay wasiiradiisa qayladooda uu maqlaayay boqorkan cuntada loo keenay uu diiday inuu cuno shaqaaladiisa waxa ku dhahaysa laba bir wax ma cunno cuntada boqorkan uu qaylinay wuxuu ku dhahayaa cuntada maribay qaad kadib waxa imaanay boqorhaan oo la wareegay boqortooyada wuxuu ku dhahayaa waxa maqlaynaa diiday cuntada laba bir wax ma cunin maxay tahay sababta u diiday inaa cunti noosaan wuxuu ku dhahayaa waxa la gaaray markayga sidii wasiiradeeda u qaylinayaan anna u qayliyaa oo iqaabtas amara wuxuu ku dhahayaa kuwaas waa qaa'imiin adiga gadaashaada ay qorshayaal sir ah ka sameeyeen waana wax iska caadi ah inay qayliyaan oo iqaabtooda ay maraan adigna xilka waa laga qaaday waxa tahay boqorkii hore waxaasna dambi kuma leeyahay adigna ma ogeen waxay qorsheynayeen hadaa ogid balaayadii wadeen maxaa ugu aamustay noosaan wuxuu ku dhahayaa hadda aniga inta ii wadaan oo lay tarxiili rabaa dhinaca kale waxa arkayna dad ugaarsata ah oo ugaarsanaya sagaaro waxaana hogaamiye u ah hooyoon asoo sagaarada fileer ku dhufan rabo saaxiibkiisa ka hadlaayo asagana fileertu la gafaya sagaarada mar labaad asoo fileertu ku dhufan rabo saaxiibkiisa ka hadlaya mar labaad kadib ayaga sagaarada ka baxsanaysa kadib ayagana iskala qaybinayaan asagana sidoo cabaal sagaaradu raadinaya markuu helo asagoo fileertu ku dhufan rabo hal mar sagaarada shabeel la boodaayo asagana markuu arkay sagaarada shabeelkan oo qabsaday kadib uu naxaya shabeelkan sagaarada inta isku soo dhigo ayuu asaga soo bursanaya hooyona waa ordaya shabeelkan oo bursanayay hooyona sidoo cabaal u ordayay oo shabeelkan uu daba socday god meesha ku yaala ayuu ku dhacayaa kadib ku soo nax asagoo xaaladiisa ay xun tahay asxaabtiisa oo imaanaya ayagoo la yaaban waxayna ku dhahayaan anaga rafaada marona adiga inta noo jiftaa miya wayna ka tagayaan asagana hadalka ku dhagnay tartiib ayuu hadlaya waxaana ku dhahayaa war shabeela ay soo bursaday xaalkayga ma fiicno caawiya kadib oo suuxaya kadib dadaas soo qaadaya markuu indhaha kala furo dhakhtarkii daaweey oo kartaagan markuu soo fiicnaada uu soo kacaya markuu meelaha fiiriyo wuxuu arkayaa inuu yimid meel ay cuntada meel walba iska taalo oo tuuladan ay barwaaqo ay tahay oo aan baahi ka jirin sida tuuladiisii camal markuu cabaar sii socdo wuxuu arkayaa dadka cunto macaan cunayaan asaga inta iska yaabo ayuu isdhahayaa ama dhintay le oo meeshan barwaaqada ay jannada tahay sidoo meelaha ula yaabanayo hogaamiyaha tuulada la hadlay kadib uu imaanaya hogaamiyaha tuulada wuxuu ku dhahayaa adeejiga qof aqaan uma ekee intay ka timaaday hooyoon wuxuu ku dhahayaa aniga waxaan ka imaaday tuulada lagu magacaabo Guanjion asagana wuxuu ku dhahayaa aniga weligay ma maqlin tuuladaas laakiin tuulada waxa la dhahaa Nooro laakiin sida inta ku imaaday hooyoon wuxuu sheegayaa inay sagaar inta ay ka dabanayaan asagii saxaabtiisa sida ay u cunaan hogaamiyaha tuulada uu ku qoslay wuxuu ku dhahayaa oo sagaar ma dabanaysan laakiin sida ay u cuntaan baashaas shirkeeda waa hore cun jirnay marka faqiirka aan waxaas hooyoon wuxuu weydiinayaa sababta cuntadan badan ay u karsadeen xaflad ma qabtiin hogaamiyaha tuulada wuxuu ku dhahayaa may wax weyn ma jiraan kaliya cunugayga amaanta ma laga xiriir rabaa sidaas xafladan u sameeyay hooyoontooya ayuu ku dhahayaa oo cunugan yar dartiisa ma waxaan dhan loo kariyay hogaamiyaha tuulada wuxuu ku dhahayaa maanta maalin farxadeed waay marka inta warkaan badan ay joojisay la soo fadhiisay hilibkana la cun kadib hooyoon la soo fadhiisanaya markuu cun hilibka wuxuu ku dhahayaa dadka tuulooyin kala degan waxay cunaan ma haystaan baahi darteed inay u dhintaan ayuu dhow yihiin laakiin adinka sidee waxaan cunto u hesheen sirtaas iyo dabageeya hogaamiyaha tuulada wuxuu ku dhahayaa adiga waxa uu eg tahay qof jaahil ah aan la socon howlahan aan ka dabageeyay maalmaha kamid ah ee tuuladii noo yimaaday wasiir gardheer leh waxaana laga soo tarxiilay boqortooyada tuuladiina loo soo tarxiilay markaasna dadka tuulada faqiiriin ayay ahaayeen markaasna gurigooda daga ayaa siinay cuntada haysan oo ugu darnay wasiirkana cuntada u keenay uu daadinaya wasiirka soo xanaaqsan wuxuu dalbaday dooro meesha taagneed in loo kariyo markay u kariyaan doorada asagana uu cunaya wasiirkana oo kabir badnaa dadka tuuladana wuxuu dhaqmay inay adoomadiisa camal laakiin hal maalin wax isbedeleen waxaana tuulada yimaadeen dameero badan oo wadaan cuntooyin fara badan dadka tuuladana u qaybiyeen cuntada dadka tuuladana waxay dareemeen in wasiirka boqortooyada loo celin rabo kadib wasiirka wuxuu bilaabay inuu ilmaha tuulada uu wax baro waqti gaaban kadib wasiirka iqaabtiisa musaafiriinta uu dhamaatay kadib boqortooyada loo celiyay ilmihii uu aqliga badnaa tuulada ayuu hore u sii batay sidoo waxbarashadooda hore uu sii dhameystiro mid kamid ardaydaas ayaa ku guuleystay imtixaanka boqortooyada kaalinta koowaadna uu ka galay wiilkiina tuulada ayuu kusoo laabtay asagoo xil fiican boqortooyada ka helay dadka tuuladana ay soo dhaweeyeen saasayna tuulada uu kala kacday oo furka faqriga ugu tuurtay iyuuna markuu tuulada kusoo laabtay ayuu sheekadaas ugu sheekeeyay dadka tuulada sidee tuuladaas barwaaqada u naqatay iyo sirta ku guuleystay ayagana waxa ku dhahayaa anagana sidaas oo kale sidana oo kala kacay marka iyuuna dadka tuulada waxa ku dhahayaa maalmo ka hor boqorkii boqortooyada xilku hay waa laga qaaday xilkaasna boqor cusub la wareegay marka meesha waxa jiro wasiiro badan oo soo musaafirin doono mid kamid ah tuuladiina keensanayna wasiir koofi weyn leh oo gardheer leh oo baashan ka dadaadanayso ayaa heleena si kasta ahaataba inta ana keenayo marka qof dhan yaa loo sheegin sirtaas qofto ayaa ku dhahayso waxaas waxay tiraysa ma lahan haddii la soo tarxiil xataa tuulada Nooro la aada meel kale ma aadayaan hooyoon wuxuu ku dhahayaa waxaas ma jiraan waxaan qasbayaa inay tuuladeena yimaadaan haddii aan wasiirkaas aan si fiican u adeegno oo shabaqan si fiican ugu soo dhaco wasiirada ka dambeeya waxay noqonayaan sida malaayiga oo kale mid ka dambeeyo shabaqan si fiican ugu soo dhacayaan haddana midoo kale dhinacaas ka soo hadlayso waxayna ku dhahaysaa wasiirada la tarxiilayo inay toobad keenaan ma u malaysaa in wixii loo soo tarxiilay inay iska dhaafi doonaan maalin kasta inay khamri noo soo cawaan ayay meelahan ku sarqaamayaan gabdhaha tuuladana dhibaataynayaan haddii wax yar la dhahaane xafiiska boqortooyada ay nagu dacweynayaan kadib dadka tuuladana waa la iqaabi doonaa midkoo kale soo boodaya wuxuuna ku dhahayaa dadkaas meelay degaan way rabaan inaan u dhisno waxay cunaan way rabaan iyo shaqaale inaan u noqono oo aan waardiyeyno sida u baxsanin haddii wax yar ku dhacaanne tuuladan dhan way u dhamaatay
dhintay waxayna noqon doontaa badweyn oo dabka baxaya camal meel walba guban doontaa qiicna ka bixi doonaa tuuladan oyuun intuu xanaaq ayuu ku dhahayaa maalinta wiilkaada timaa laga xiirayo xafladiisa maxaa sii doontaa waxba ma haysidee cunta ahaan waxa uu cuno anaga waxaa cunna xataa ma haysano wiilkaada biyo la siinaynaa kadibna iska seexanayaa laakiin tuuladaas nooro maalintay tahay cunug yar dhalashadiisa ama timale loo xiiraayo adduunya loo keenaa bariis iyo hilib oo macaan ayaa la siinaa dadka tuulada dhan oo isku imaanayaan cuntadana wada cunayaan ilaa calooshooda ay ka qaraxdo sidee u dhargeen leh tuulada oo dhan ayuu iimaanka soo ridaa dhinacaasna gabadha yariisa kasoo hadlayso ayadana waxa ku dhahaysaa aniga xataa waa rabaa inaan cuno bariiskaas iyo hilibkaas hal mar leh maalintii xigtayna hooyan wuxuu soo aaday xafiiska boqortooyada sidoo hal wasiir uu soo bato asagoo dhar fiican soo gashtay asagoo sii socdo waxa uu kii hogaamiyaha tuulada nooro ahaa asagna wasiiroo soo doontay inuu wato hooyana markuu arko inuu isboojoy ayuu bilaabayaa asagana waxa ku dhahayaa tuuladaas dheer maxaa kaa keenay waa intuu imaaday hooyana beena uu sheegaa waxaanu ku dhahayaa buur meesha saa fuulay calool xanuuna ayuu dhacay shuban adi meesha maxaa ku keenay hogaamiyaha tuuladana wuxuu ku dhahayaa ani waxa u socda xafiiska boqortooyada si aan wasiir kale u soo qaato oo u soo bato tuulada u geysto hooyana waxa ku dhahayaa wasiir kale soo wadan rabtaa miya cidaad horan soo raaci miyaad markuu gadaashiisa fiiriyo hooyan orod ayuu jabsanayaa sidoo xafiisku uga hormaro asagana markuu fahmo inuu meesha u socdo uu kasoo daba ordayaa xafiiska boqortooyada imaanayaan ayagoo isbursanayaan gudoomiyaha degmada intooya ayuu ku dhahayaa war iga aamus khayradan joojiya hal qof oo hadla hooyan wax ku dhahayaa weligaa ma maqash tuulada magacaabo guanjon oo ku taal webiga agtiisa gudoomiyaha degmada intoo la yaaba magaca tuuladaas ayuu ku dhahayaa weligee ma maqlin hooyan wax ku dhahayaa xataa siday meeshaas u dheer tahay gudoomiyaha xataa ma yaqaan tuuladaas magaceeda tuuladaasna buuraha dhexdooda ay ku dhex taalaa waana meesha ugu fiican qof loo tarxiili karo hogaamiyaha tuulada nooro intoo yaabo ayuu khaylo bilaabaya waxaanu ku dhahayaa tuuladiina mar walba dadka loo soo tarxiili jiray ninkan khiyaanoole weyn waaye wasiirada lasoo tarxiilanay tuuladiina ku haystaan ayagana waxay dhan ma rabno inaan tuuladiina aan ka tagno siday u jecel yihiin tuuladiina leh hadda tuuladiina ma ka bedelaysiin marka in wasiirada loo soo tarxiilo gudoomiyaha intoo labadooda la yaabo ayuu go'aan gaarayaa wuxuuna ku dhahayaa meesha wasiirada loo tarxiilo keliya tuulada nooroo leewaayo mana la bedelayo kadib uu ka tegayaa oyuun inuu qaylo ayuu bilaabayaa qayladiisna waxaa maqlaya haan kadib banaanka ayuu soo baxayaa oyuun wax ku dhahayaa ina qof faalnimo ihi waxaana duq tuulada guanjiyoon gudoomiyaha tuulada wuxuu ku dhahayaa askartiisa ninkan waa la ku tuura banaanka aan wuxuu gudoomiyaha ku dhahayaa wax yar sugabo aan dhegeysanaya wax wado kadib wuxuu weydiinaya hooyaan sababtoo u rabo in loo tarxiilo wasiirada tuuladiisa hooyana dhulka ayuu fadhiisanayaa wuxuuna tusayaa khariirada tuuladaas wuxuuna sheegaya in meeshaas ay ku taalo meel jasiirad camal oo dhul ku dhex taalo meeshaas xataa xayawaanada xataa ay ku dhex waashtaan waqti roobaadka xataa meeshaas dhiiqi iyo rafaad waaye xataa meeshaas kaneeco waaweyn xataa meel walba ay buuxdaa waqtiga qabowahana saa'id waaye qabowgeeda meeshaas looguma talagelin xataa inuu bini'aadan ku noolaado meeshaas waxaa loogu talagalay in qofka dembiilaha in lagu ciqaabo sidoo dembigiisa oo ugu toobad keeno aana khariirada tuulada ayuu fiirinayaa markuu warkiisa ka helo oyuun wuxuu keenaya ahaan tuuladii uu sheegayay haana markuu meesha si fiican u fiiriyo wuxuu ka amrayaa ciidankiisa in la shaaciyana meeshan ay tahay meeshii loo soo tarxiili lahaa oyuun markuu warkaas maqlay aad u farxa kadib noosaan waxaa laga soo musaafirinaya boqortooyada wuxuuna wadada ku arkayaa wasiiradiisii oo qorta laga wada jaray oo banaanka la suray madaxyadooda dadka magaalada dhan way u ooyinayaan markay arkeen boqorkooda la musaafirinaayo noosaan intay wadada kusoo jireen oyuuni dadka tuulada waxay u diyaarinayaan guriga la dejin lahaa maalmo kadibna guriga toosintiisa way dhammaynayaan dadka tuulada waxay oyuun ku dhahayaan goormo imaanaa wasiirka oyuun wax ku dhahaa mardhabo imaanaa kulligiina imaqla nolosha tuuladeena qofkaasay ku xiran tahay marka fudaadka badan joojiya wasiirka si fiican ha loo soo dhaweeyo wasiirka wax walba hadoo sameeyo keliya ha loo qoslo si fiican ha loo soo dhaweeyo wax walba unagu amar haylayaa la dhaho asagoo dardaaran ku wado midkaa uu sheegayo inay dad soo socdaan oyuun dhinacooda ayuu soo ordayaa wuuna soo dhaweynayaa taliyaha wuxuu askarta ku amrayaa inay asagii noosaan inay soo raaceen doonta loogu gudbo webiga askartana dabaal biyaha ku dhex maraan askartana webiga dhex marayaan namsoona doonta la soo saara oyuun asaa doonta wadaayay markuu fiiriyo noon uu la yaabayaa asagana wuxuu sugayay nin gardheer loo duq ah wuxuuna isdhahaa laakiin ninkan gardheer ma walahane doontan dhinac kale ayaa loo jiidayaa sidii cabaar u jiidayeen kadib doonta dhagaxa hoos ka qabsanaayo markay doonta istaagto oyuun wuxuu fiirinaya cilada jirto wuxuuna asxaabtiisu sheegayaa inay doonta hoos dhagax ugu dhagay marka xoog ha loo jiido doonta xirigeeda asxaabtiisu waxay bilaabayaan inay xoog u jiidaan doonta xarig ku xirneed waxyar kadib markay doonta kala jiidaan kadib doonta way kala jabaysaa biyahana ku wada dhacayaan kulligooda dadka tuulada markay arkaan noosaan inuu biyaha ku dhexdhacay kadib u soo gurmanayaan noosaan asagane maba kala jeclan inuu dhinto ama inuu noolaado biyo iska dhex taagnaa dadka tuuladana way badbaadinayaan kadib habeenkii ma galgaaray oyuun iyo asxaabtiisa doontay samaynayeen kadib asaga waxay ku dhahayaan laakiin wasiirkan garweyn ma walahane duqna ma aha laakiin waxaa yimaaday cunug yariis ah maxaa dhaca noo sheeg had cunugan ma taqaanaa wasiirka magaciisa oyuun asxaabtaa ma ogeyn noosaan inuu yahay boqorka wasiir loo umaleeyaa asaga xataa uu yaaban yahay wuxuu sugaya odag gardheer leh wuxuuna asxaabtiisa ku dhahaa cunugan yariiska magaciisa noosaana la dhahaa maalintii xigtay hooyun wuxuu keenayaa noosaan quraacdiisa noosaan guduhu ku jira iridana u xirneed hooyun wuxuu ku dhahayaa noosaan shalay haddaan kusha doonta si fiican u hayn lahayn saaca waxaan ahaan lahayn dad dhintay waxaana kor sabeen lahayn webigii korkiisa shalay balaayo weyn waa dhici lahayd si aad xoogii tabar u hesho waa inaad si fiican wax u cuntaa hadda kaala cun dadka tuuladan si fiican ay quraacdan kugu soo diyaariyeen intaysan kaa qabanin cuntadan kaala cun noosaan wuxuu ku dhahayaa niyo meeshaan iskaaga tag cuntadan cisho noosaan shaqaaladiisa waxay ku dhahaysaa hooyun mudanaha maanta xaalkiis ma fiicno cuntadan ur celi hooyun shaqaalada wuxuu ku dhahayaa saa xal ma aha waajibka saaran waxaa waaye inaa subaxdii imaaday galabtii si aan warbixintiisa u gudbiyo xafiiska boqortooyada inaan maanta arkina macquul maaha inaan arkale waaye noosaan ka horkiis maqlo intuu xanaaqo ayuu albaabka soo haraantinayaa wuxuuna ku dhahayaa warkay maqli miya cuntadan celi orod shaqaaladiisa markay aragto noosaan inuu xanaaqay meesha iskaaga tegaysaa hooyun intoo la yaaba ayuu ku dhahayaa cunugan maxaa waaye oo kibirlooga ah cuntada celi kula rafaad
dulqaadka soo marna ma og asagoo saan u yar waxa uu dhaqmaa si akhlaaq daran si walba uu idib daran yahay kaliya anaga waa inaan u khusulna xaalkan dejina kadib waxa fiirinaya cuntada uu diiday Noosaan wuxuuna arkayaa inay tahay cuntadii uu jeclaa wuxuuna bilaabay inuu cuntada isku daldalo asagoo cuntada cunaya waxa kor imaanayso Noosaan shaqaaladiisa waxayna ku dhahaysaa sida cuntada afka ugu buuxsatay ama qanjaa ku qarxan leh in asagoo afka u buuxo oo meel ka hadlala ayuu ku dhahayaa si qaldana wax u fahamtay anigana rab cuntada muu cunooy bariisku wax ku dhex jiro tixra ku kuusan sidaas darteeda uu cunooya maane marabayna cuntada kadib banaanka ayuu soo baxayaa wuxuuna arkayaa ciidankii guri ilaalinayeen oo baxayaan kadib wuxuu imaanayaa gudoomiyaha wuxuuna weydiinayaa sababta ciidanku u baxooyin gudoomiyaha wuxuu dhahaa ma ogid miya inaysan muhiim ahayn inay ciidanka ilaaliyaan qof kale soo musaafuriyay kaliya waxaa muhiim ah qof guriga mas'uulka inuu ilaaliyo qofkaas asaa laga rabaa adiga mar walba waa inaad soo gudbisaa warbixin walba oo khusayso Noosaan haba yaraatee shimbir haddee buubtactaa waa inay soo sheegtaa dhinaca kale waxaa arkaynaa hooyo wiilkiisa oo jooga suuqa asagoo filaar samaysanayo wuxuu maqlayaa kuwa ku sheekaysanaya in boqorkii hore boqortooyada in loo musaafuriyay tuuladooda hooyo wiilkiisna uu naxayaa hooyana asagoo tuuladiis ka jooga waxa uu imaanaya kii hogaamiyaha tuulada Nooro ahaa oo wasiirka soo qaadanayay asaga markuu arkane uu ka cabsanaya asagana wuxuu rabay inuu uga mahad celiyo kadib markii uu ka badbaadiyay baxarkii oo gal lahaa oo asaga Noosaan soo watay hogaamiyaha tuulada wuxuu ku dhahayaa meeshaan dagaal uma imaanin kadib wuxuu siinayaa doorey cuntadeeda hooyinta la yaab ayuu ku dhahayaa maxaa waxa dhan ii siinaysaa asagana wuxuu ku dhahayaa niyo balaayi soo socota iga badbaadisay marka dooradan iyo cuntadan sida kaaga xasdaa hooyana asagoo yaaban kadib wuxuu weydiinayaa mar labaad sababta cuntadan u siinooyo hogaamiyaha tuuladan wuxuu ku dhahayaa runtii aad u mahadsan tahay sida kuugu mahad celiyo ma aqaani kadib ay ka tagayaan ayagoo khuskhuslayaan kadib waxa uu imaanaa wiilkiisa wuxuuna ku dhahayaa ma taqaanaa wasiirka tuuladeen la soo musaafuriyay hooyana wuxuu ku dhahayaa maxaa u aqaani waayay kaas Noosaan la dhahayaa wiilkiisa wuxuu ku dhahayaa Noosaanka ma taqaanaa horta maalmo ka hor wuxuu ahay boqorka magaaladan hooyinta la yaab ayuu ku dhahayaa boqor wiilka maanta muxuu soo caawiyay kadib dadka tuulada isku imaanayaan waxayna ogaanayaan Noosaan inuu yahay boqor hooyo wiilkiisa markuu dadka sii wareystay waxay u sheegeen in Noosaan mar dhow cuntada sun lagu dar rabo oo saas ku dhiman doono dadka tuulada naxdin la sii qaadeen markay maqleen in Noosaan cuntada wax lagu dar rabo ayaga mid kamid ah wuxuu ku dhahayaa dee sun la sii cunugaas oo dhinta aniga maxaan ugu dhacayo dhibka adduunka noo imaanayo hadda anaga waxaan nahay dadka dhimashadooda sugooyaan waxaasna odagaan balaayada qabaan oo keenay kadib kulligooda ooyinay bilaabayaan hooyana wuxuu ku dhahayaa dadka tuulada aana ay dhahay muddo gaaban kadib in Noosaan qarsi loo celin rabo war kaliya aamina leh ana haddii qorta saf laga saara xataa bee ma sheegay kadib dadka tuulada warkiisu ay aaminayeen dhinaca kale habeenkii ma galgaaro waxaa arkaynaa Noosaan oo hurdo oo dhiig ku daadanaya korkiisa markuu indhaha kala furo wuxuu arkayaa wasiiradiisa wada dhiig ah oo dhahaya meel cidla maxaa nooga tagtay kadib hurdadu ku soo boodaya asagoo naxsan waxaasna riilay ahaayeen Noosaan wuxuu dhahayaa barrow anigane waa idin daba imaan doonaa hooyo intuu qamri isku soo dharjiyay ayuu imaanayaa buurta wuxuuna dhahaa maxaa balaayadan igeliya aniga kaliya waxaan rabay inaan nolol fiican ku noolaado oo wiilkeen wax ii barto nolol degan ay rabin iskaga noolaado wasiiradaas badan adi kaliya maxay ka soo raaciyay dhinaciisa kala markuu fiiriyo wuxuu arkayaa Noosaan dhinacaas taagan wuxuuna bilaabay inuu raali geliyo wuxuuna weydiinayaa saqdan dhexe maxaa inta ku keenay kadib Noosaan buurta ayuu dhawaanayaa kadibna iska tuuraya markuu buurta iska tuuray hooyuna ka dawbooday oo qabanayo Noosaan wuxuu ku dhahayaa waa ku barya gacanteeda siida dhintay hooyuna wuxuu ku dhahayaa hadaa dhimato dadka tuulada oo dhan waa la wada dilayaa kadibna uu badbaadinayaa subaxdii markii la gaaray wuxuu u tagayaa gudoomiyaha wuxuuna sheegayaa xal wixii dhacay in Noosaan isdil rabay oo buurta iska tuuray gudoomiyaha wuxuu ku dhahayaa hadaba dhintay kaas hooyuna wuxuu ku dhahayaa maya ma dhimanin anaa ka dawbooda oo badbaadiyay gudoomiyaha wuxuu ku dhahayaa wixii xal aragtay qof dhaha u sheegin si fiican u dabagal ninkaas maalintii xigtayna waxaa fariin u soo diray adeerkiisa asagana marka warqada arkay shaqaaladiisa waxay ku dhahaysaa warqada maxaa u fur laadahay Noosaan wuxuu ku dhahayaa waa ka cabsanooyaa warqadan wax ku qoran iyo waxa kale oo ka cabsanooyaa inay warqadan run tahay oo aan la soo diray waxyar kadibna hooyana soo xafadiisa u socdo waxa uu imaanayso Noosaan shaqaaladiisa ordayso waxayna weydiinaysaa inay aragtay Noosaan hooyana wuxuu ku dhahayaa ma arkin guriga ma joogo miya ayadana waxay ku dhahaysaa xafiiska boqortooyada aaday markaa ku soo laabtay guriga waan waayay meel walbana ka raadiyay hooyana yaaba waxaan is dhahaa ka mar labada mu isdil rabaale kadib dhinac buurta soo aaday Noosaan buurta taagnaay warqadii loo soo diray ayuu aqrinayay hooyana soo ordayo imaanaya buurta wuxuuna bilaabay inuu canaanto wuxuuna ku dhahayaa inaa san ku dhimatid artaamiya dadka tuuladana adeeg ku raadinooyin ayagoo naxsan adina taadlay ku daran waxaanu ku fikiraysaa inaa kaliya isdishid Noosaan wuxuu xanaaqayaa wuxuuna ku dhahayaa adiga ma waalatay sidee ugu dhiiratay inaa san ay la dhaqantid hooyana wuxuu ku dhahayaa mar hore waashte haddaan jinoola ahaan lahayn ma waxaan samayn lahaa si aan u buuxin dadka tuulada calooshooda oo baayad uga baxan oo wiilkeen waxbarasho u helo qorshaan dhan u sameeyo dhibka badan ayagana maalin walba faqri dhimasho lay ka fikiraan mar hore waashte inaa bac aruuri kaliila iyo dhiman asagoo ku qeelana oo ku dhagan dadka tuulada u imaanayaan shaqaaladiisna ku fujinaysaa waxayna weydiinaysaa inuu caafimaad qabo Noosaan mid kamid ah markuu gees ka fiiriyo wuxuu arkayaa shabeel oo dhinacaas ka soo socdo ayaga dhan way cabsanayaan duqo tuuladan wuxuu ku dhahayaa shabeelka ilaa qof ku cuno ma baxaya adinka iska bax orda anaha ay cunay dhinaca shabeelka ayuu soo aadaya shabeelkan waxa filaar ku dhufanaya wiilka hooyoon asagoo mar labaad filaar ku dhufan rabo ayaa lugtu bixis dhulka ayuu ku dhacayaa wiilkiisa asagoo shabeelka cun rabo Noosaan filaar qabsanayo dhinaciisa ayuu qeylinayaa shabeelka dhinaca Noosaan ayuu soo boodaya kadib Noosaan filaarta ayuu madaxa ugu dhufanaya shabeelkana buurta ayuu ka dhacayaa Noosaan baayahaysay kadib uu suuxaya kadib guriga la keenaa shaqaalada madaxa maro u sarsaaray ayadoo banaanka joogto waxa uu imaanaa hooyoon cunto wado wuxuuna ku dhahayaa hadda ma soo naaxay Noosaan ma fiican yahay xaaladiisa ayadna waxa ku dhahaysaa cuntada meeshan iska dhig kadibna iska bax hooyoon waxa ku dhahayaa aniga waxaan rabaa inaan arko Noosaan inuu caafimaad qabo laakiin saamaxay ugu dhaqmoosa ayadna waxa ku dhahaysaa shalay waxa sameysay ma xasuustaa horta qofka hadduu jaahil yahay xataa waa inuu xad uu leeyahay akhlaaq daraa oo la dhaqantay
noosaan sidee ugu dhiiratay inaad boqorka canaanatid oo kuleetigiisna ku dhigtid ayagoo doodan waxa banaanku soo baxay noosaan wuxuuna ku dhahayaa baahi darna ay hayso noosaan cuntada maalmahan diiday ayuu cunayaa shaqaaladiisa aad ugu faraxsanay inuu wax cuno ayagana wuxuu ku dhahayaa ilaa cuntada ka dhameynaya ma ili joogaysiin hooyona wuxuu ku dhahayaa maanta hadda adiga aan lahayn wiilkay dadka tuulada shabeelkaasaa cuni lahay musiibo weyn way dhici lahayd anigna saaidaa kaaga welwelay kaliya waxaan rabay inaan ku arko adigoo cuntada wax yar ka cunaya xataa noosaan wuxuu ku dhahayaa laakiin shalay adig si kale u dhaqmaysay waxaa tahay qofkii ugu horeeyey oo saas igu qaylay oo kuleetiga xataa waa iga qabatay hooyona dhulka ayuu fadhiisanayaa sidoo uu raali geliyo noosaan wuxuu ku dhahayaa shalay hadalkaa waxaa ka mid ahaa adiga lugaha xafiiska boqortooyada ku tagtay si wasiir u soo wadato hadalkaas maxaa ka waday hooyona sheekada dhan ayuu sheegayaa noosaan wuxuu bilaabay inuu ku qoslo wuxuuna ku dhahayaa laakiin inta aniga imaaday maxaa u malaynaysa inuu wasiir inta imaanaya aniga xataa awood uma lihi inaad tuuladeen dameer cunto wado inaa u soo diro marka ay ogaatay aniga runteeda dareenkeedu isbedelamay waa naxday hooyona markuu tuulada kusoo laabto dad noosaan raadinayaan waxayna weydiinayaan hooyoon asagna uu tilmaamaya meesha uu degan yahay noosaan markay yimaadaan meesha uu degan yahay hooyona bilaabayaan waxayna ku dhahayaan naga raali noqo boqor waxa kuu qaban ma lahan hooyona soo ordaya wuxuuna ku dhahayaa ninkaan boqor ha dhehina haddii la idin maqlo balaayaa idinku dhaceyse ayagana warkaas kuma soconin hooyintooda iska sii wadanayaan waxyar kadib ay soo badanayaan kadib meesha waxaa imaanaya gudoomiyaha degmada dadka ooyaan wuxuu ku dhahayaa keliya hala ooy laakiin ninkaan boqor ha dhehina lama ogol in boqor la dhaho dadkan waxay bilaabaya cuntaday u wadeen inay webiga ugu soo tuuraan noosaan ilaa habeenkii la gaaraya dadka waxay wadeen webiga kusoo tuurayeen noosaanna koroo ka fiirinaya dadkay u yimaadeen siday u jecel yihiin asaga dhinaca kale noosaan adeerkiisa ninkii warqadda ugu soo dhiibay noosaan ayuu mar kale usoo diraya wuxuuna ku dhahayaa mar labaad ku laabo tuuladaas noosaan gurigiisa buurta ku aada mara cad ugu xir kadib markuu go'aan gaaro falaare jawaabtu qoran tahay ayuu kusoo tuurayaa marada agteeda ayaga qorshahoodan waxaa maqlayay mid ahaan jaajuus u ah warkooda dhan uu dhegaysanayay maalintii xigtayna hooyin wiilkiisa wuxuu imaanayaa noosaan wuxuuna ku dhahayaa inaa wax bartaa raba oo macalin ay noqoto noosaan wuxuu ku dhahayaa waxaa maqlay inaa jecleen waxbarashada sababta qalbigaaga bedel maxaa waay marka hooyin wiilkiisa wuxuu ku dhahayaa anaga meeshaan buurleyda degannahay hadaaran xataa inaa wax barano buuga wax ka akhrisan xataa ma lahan xataa macalin waxna baraya ma joogo haddaa wax barana xataa ma lahan rajo aan ugu guulaysanayno imtixaanka boqortooyada laakiin macalin adiga camal hadduu macalin ii noqdo markaas macquul waa inaan guulaysano cilmiga kaa bartane waxaan rabaa dadka tuuladana sii baro noosaan wax ku dhahayaa diyaar waaye marka aan isku dayno noosaan ilaa habeenkii ayuu wax barayay hooyin wiilkiisana asagoo wax la baraya koroo ka fiirinayay asagoo aad ugu faraxsan inuu helay macalin maalmo kadibna hooyin wiilkiisa wixii uu bartay ayuu sii barayay ilmaha tuulada macalin waa u noqday noosaani dadka tuulada way isfahmeen asxaab ayay noqdeen marba qofka uu keenaya cuntada uuna ku faraxsanaya dadka tuulada asaga noosaan adeerkiisa ninkuu soo diray maradii ayuu suray buurta asagoo cabaar sugaya jawaabta noosaan waa la qabanaya waxaana qabteen ciidanka haan waxayna geeyeen meel cidla ah haan wuxuu ku dhahayaa waan ogahay warqad noosaan qofka soo diray inuu yahay adeerkiisa familada kale wasiirada qaa'imiinta ahaayeen qaarkood waa la musaafuriyey qaar kale waa adoonsaday laakiin adiga familkaada inaa hilibkooda aan jarjaro ayaan u qaybinayaa gobolada boqortooyada oo dhan ninkii lasoo dinto xinaaqo ayuu ku dhahayaa doqonaad tahay dembiyada saqaysan aa ku gashay magaca boqortooyada waxay noqon doontaa wax aan nooceeda horey taariikhda usoo marin haan intoo xinaaqo ayuu qoorta ka jarayaa maalmo kadibna noosaan adeerkiisa waxaa loo soo sheegayaa in ninkay tuulada u direen in akhbaar laga haynin oona la la'yahay asagana wuxuu ku dhahayaa adiga tuulada noosaan jooga aad soona hubi in buurta marada cad ee calaamad inay suran tahay ninkiina tuulada soo aadaya maalmo kadibna gudoomiyaha wuxuu ku amrayaa ciidankiisa in ilaalo fiican laga qabto guriga noosaan amnigiisna la adkeeyo habeenii maalin yoona asoo tuulada jooga wuxuu arkaya wiilkiisa warqad wado wuxuuna weydiinaya meesha u wada warqadahan wiilkiisna wuxuu ku dhahayaa ilmaha tuulada warqadahan qoreen noosaan waxay dhahay iikiin aan arkay saasaa ugu wada asaga kadib hoyooyinka noosaan u imaado isagoo la hadlaya waxaa asagoo ordaya u imaanaya saaxiibkiisa wuxuuna u sheegaya in wiilkiisii in la xiray oo gudoomiyaha xiray oona la inqaabooyo hoyoona asoo ordaya wuxuu imaanayaa meesha wiilkiisa lagu haayo askarta albaabka jooga way celinayaan hoyoona wuxuu ku dhahayaa waxaa u imaan inaa la kulamo gudoomiyaha iyo ogolaada inaa gudaha galo askarta markay isku dayaan inay celiyaan hoyoon xog ayuu galaya gudaha wuxuuna arkaya wiilkiisa xabad loo xiray oo dabada laga garaacayo wuxuuna weydiinaya gudoomiyaha wixii uu sameeyey wiilkiisa oo sanaan loogu inqaabooyo gudoomiyaha wuxuu ku dhahayaa waxaa maqlinay jiraan dad guriga noosaan si qarsoodi u galaayo kadibna ugu soo baxaayo anigaa amarna qofka meesha lagu arko in la soo qabto oo si fiican loo garaaco hoyoon wuxuu ku dhahayaa kan wiilkayga waaye meeshaas dhuumashaa uma gelin anigaa meeshaas u diray marka anigaa laga garaaco qaybtaas anaa maraayo kaliya wiilkayga laa daayo gudoomiyaha wuxuu ku dhahayaa waxaas ma jiraan askartoona ku amraya inay balaan ku tuuraan asaga haana dhinacaas kasoo hadlaayo wuxuuna ku dhahayaa adiga mar walba inta imaado buuqle maawadee buuqle ku jirtaa hoyoon dhinaca haana u soo ordaa wuxuuna ku dhahayaa aniga jaahilnimadeeda darteeda qaladaadkan badan u sameynay marka hana la cafiya aniga wiilkayga haana wuxuu ku dhahayaa warar badan waxaana ay soo gaartay sidaa intuu imaaday waxaan ku arkay adoo wax xun aan fiicnayn samaynaysid hoyoon wuxuu ku dhahayaa wax walba qalad anigaa sameeyey marka wiilka la ii daayo haana wuxuu ku dhahayaa boqortooyada sharciyadeeda hadaa ku xadgudubtid qaabteeda adag tahay mana loo adkeynsan karo hoyoon wuxuu ku dhahayaa adigaa 100 mar ma aanay kun mar saxan laakiin wiilkayga hadaa 100 ul dhabarka loogu dhufto wuu dhimanayaa ama cuuriyaano iga noqonaa haana wuxuu amar ku bixinayaa in ush lagu sii wado wiilkiisana garaacitaanka lagu sii wadayaa kadib meesha waxaa imaanaya noosaan wuxuuna askarta ku amrayaa in garaacintaanka laga joojiyo oona la sii daayo gudoomiyaha wuxuu ku dhahayaa cunugan gurigaada iska sii gelaya oona kasoo baxaya amar la'aan waxaana laga yaabaa inuu wax ka xadaayay ama adiga inuu ku diloo rabe noosaan wuxuu ku dhahayaa anigaa wiilkan wacay gurigaasna keliya waa ku cidlooday waxaana rabe saaxiibaa la sheekaysto marka la iska sii daayo gudoomiyahan wuxuu weydiinayaa waxay samaynayaan haana wuxuu ku amrayaa in si fiican loo sii garaaco ilaa uu ka dhimanayo wiilkaas noosaan wuxuu xanaaqayaa wuxuuna ku dhahayaa doqonyow sidee ugu
dhiiratay inaad dadka hortooda ay ugu bahadish haynta xanaaq ayuu ku dhahayaa noosaano weli waxa isku malaysaa inaad boqor tahay cunuga madax dhuwan isfiican loo garaaco ilaa uu ka hadaafayo hadduu ku laaban waayo noosaan guriga loo talxiilay in sida wiilkiisa ciqaabta loogu joojiyo wuxuu noosaan ka codsanaya inuu gurigiisa ku laabto intaysan wiilkiisa dilin kuwaan noosaan wuxuu sameeyay markuu waayo wuu iska laabanaya noosaan isagoo xanaaqsan markuu guriga kusoo laabto wuxuu fariin u qoraya adeerkiisa inuu diyaar u yahay in meesha dagaal looga saaro boqortooyadiisana uu dib u soo cishto noosaan warqadii jawaabta uu soo qoray ayuu filaad kusoo dejinaya wuxuuna kusoo tuurayaa meeshii marada caday loo suray warqadii ninkii adeerkiisa soo diray ayaa sugayay warqad kadib uu qaadaya warqadii jawaabta ahayd oo noosaan soo tuuraya markuu qaadaya ninkii loo soo diray oo doonta sii raacay waxaa kor ka arkaya hooyoon asagana hadaladii uu dhahay ayuu soo xasuusanaya sidoo wiilkiisii dadka tuulada u badbaadaan inuu noosaan uu dhinto asagana cadayn lagu dili karo oo ka keeno ninkiina warqada sidoo u waday wuxuu u geenayaa noosaan adeerkiisana warqada ayuu akhrinaya wuxuuna ku dhahayaa aniga hadda kadib aniga miyii qof daciif oo la musaafuriyey taasna taariikhda markaad kici doonto anigana waa ku garab taaganahay diyaarna waa ahay haddaa ku guulaysan afgambigan wuxuu noqon doonaa hogaamiye kusoo cishtay boqortooyadiisa xoog hadday rabtaa qaadato waqti badan laakiin dagaalkaas haddaa ku fashilano taariikhda xusi doonto inaan isku dayno inaad toosino oo aan saxin taariikh qaldantay dagaalkaas naftayna u hureyna waxayna taariikhdaas gaari doontaa jiilasha naga dambeeyo adigana gobolkaada joog aniga aadayo geedka weyn adiga ayay tilmaamtay meeshasaa noo balan haana waxaa lagu soo sheegayaa in noosaan iyo adeerkiisa in heshiis qarsoodi uu dhex maray ayna samaysteen isbahays xoogan haana wax ku dhahayaa dhiig badan oo tuufaan wato aa soo socdo marka isdiyaariya adinka noosaan adeerkiisa ciidankiisa oo diyaarsaday nin soo wadna u soo diray wuxuuna ku dhahayaa geedka weyn agtiisa aad markaa heshidna noosaana soo wad inta keen ciidankiina waxay soo aadayaan noosaan meesha ku balameen dhinaca kale noosaan soo dirishada kasoo boodi rabo waxaa bannaan ku taagnaa hoyoon wuxuuna ku dhahayaa samayna sidaan haan wuxuu sheegay adiga adeerka ina afganba aad samey rabtiin markii soo sheegay ayuu dhahay wax walba gurigaan ku arko waxaa fahmi waadaa meeshaan ku arko asaga u sheegi doonaa noosaan wuxuu ku dhahayaa wax nooc kalema meeshaan ku aragtay afahmi weyse hoyoon wuxuu ku dhahayaa haa waa arke nin sii qaada warqadaa qorte marka isku joog haddaa joogi weys waxaan aadi doonaa xafiis gudoomiyaha wax walbana soo sheegaa noosaan gurigiinoo joogo oo diiday gurigana kasoo tagaya hoyoonna soo ordaa isagoo ordaya waxaa imaanaya xafiis gudoomiyaha cabaar ayuu ka fikiraya wuxuu samayn lahaa noosaan isagoo sii socdo oo waddada ka bixi laha raadinayo waxaa ka daba imaanaya hoyoon wuxuuna ku dhahayaa haddama ku adkaysatay inaa baxdo noosaan wuxuu ku dhahayaa aniga ma rabin inaan waayo dadkaan jeclaaday oo isoo dhaweeyey dadka tuuladana uu sheeg inaa fiicanahay noosaan soo sii bixi rabo hoyoon wuxuu ku dhahayaa aniga dadkaas ma kamid ahay oo aad jeclaatay noosaan wuxuu sheegayaa inuu asagana uu kamid yahay kadib labadoodu is soo raacayaan waxayna imaanayaan geedka weyna agtiisa kadib ayagoo geesaha fiirinayaan waxaa labada gees kasoo wada baxayaan ciidanka uu adeerkiis soo diray waxayna uu sheegayaan inuu adeerkiis uu soo diray wax walbana ay diyaar yihiin markay is soo raacaan waxaa geesaha kasoo baxayaan haada ciidankiisa waxayna soo weerarayaan noosaan ciidankiisa noosaan meesha ka baxsanayaan ninkii uu adeerkiis soo diray ciidankiisa wax ku amraya inay noosaan ay badbaadiyaan kuwaan anigaa la dagaalamaayo noosaan way sii baxsanayaan asagana wuxuu bilaabaya inuu ciidanka haan la dagaalamo sidoo cabaar ula dagaalamayay markoo dhamay qaar kamid a ciidanka haana falaar kusoo tuuray madaxay ay nagu dhacaysaa asagana meeshaas ayuu ku dhimanayaa noosaan siduu u ordayay haan uu ka daba tegayaa ciidanka la socdayna kulligood oo dhammaynaya kadib noosaan waa la qabanaya haan wuxuu ku dhahayaa si walba u samaysna furiimo kuwii kusoo raacay dhiig badanaa ka daatay kan dabaalkan ku daba socdane asigii wiilkiisii dadka tuulada halka ma reebi dooni kabtee ma aragtaa ka dhacayso meeshaas noosaan siduu u badbaadiyay dadka tuulada hoyoon ayuu kusoo jeesanayaa wuxuuna qabanayaa kuleetigiisa wuxuuna ku dhahayaa adigaa si qarsooda u akhrisamaya warqadayda aan qoray adigaa qarshaan ii dhigamaya jaajuus yow haan wuxuu ku ballan qaaday inuu ku siiyo si aad daacada ugu noqotay asaga si uu wiilkaada meel u gaaraa tuugaataa cune haana wuu ku qoslayaa hadalkiisuu aaminay wuxuuna askartiis ku amrayaa inay dambiilaha noosaan ay soo qabtaan kan kalena meeshiisa loogu soo tago noosaan oo la soo qabanaya ciidanka haan way wadanayaan dhinaca kale noosaan adeerkiisa ciidanka u diray noosaan markii hadalkooda ay waayaan ayna soo daahaan ayaga waxay ku dhahayaan waxaa laga yaabaa in la qabtay ciidankaas saan dhamaxay uu soo daaheen noosaan adeerkiisa wuxuu ku dhahayaa anigaa meeshaas aadayo oona soo wadaya noosaan markuu banaanku soo baxo uu arkayaa ciidankiisiyo kulligooda la dilay ciidanka haanne afradkiisa kasoo hareereeyay adeerkiisna waa la qabanaya kadib maxkamadda boqortooyada ayaa la saaraya waxaana lagu xukumayaa maadaama boqortooyada qiyaame waxaana lagu xukumayaa inuu suntii uu ku dhiman lahaa uu gacmihiis ku cabo noosaan adeerkiisana suntii lagu xukumay inuu cabo ayuu cabayaa wuuna dhimanayaa maalmo kadibna hoyoon asagoo nii jabsan oo dhulka iska jiifo waxa uu baaqaysa noosaan shaqaaladiisa kadib noosaan ayay u keenaysaa hoyoona markuu arko noosaan aad ayuu ugu farxayaa noosaan wuxuu ku dhahayaa dadka tuulada ma fiican yihiin kaliya waxaan rabay inaan ku arko hal dalab oo degdeg ahna waa rabay inaa ii samaysid hoyoon wuxuu ku dhahayaa diyaar waa ii sheeg dalabkaada noosaan wuxuu ku dhahayaa askartan markay beri ii yimaadaan xariga falaarta qoortiskaaga xira adiga gacantaada igu dil ma rabi inaa suntaas ku dhinto mana rabi inaa falxumadaas inaa gacmooda ugu dhinto halkaas dalab kaliya ii sameey gacantaadana igu dil kadib webiga sidaas ugu dhaafi maalintii xigtiin waxaa la gaarayaa waqtigii maxkamadda la saar lahaa noosaan maxkamaddana xukume inuu sun gacmihiis ku cabo markay maqlaan xukunkaas dadka tuulada ayaga dhan way ooyinayaan noosaana gurigoo isku xiray ciidamadiina irid ku furna wuu ka diiday ciidankina iridda furan ay isku dayayaan kadib meesha waxaa imaanaya hoyoon wuxuuna ku dhahayaa qaa'inkamaa soo bixin la adihiin anaa guriga kasoo bixinayo jaan sir leh halaysiiyo askartan hoyoon dhinaca guriga ayay usoo daynayaan markuu irid tago wuxuu ku dhahayaa waa imaaday waxaana la gaaray waqtigii aa gudbi lahayd webiga noosaana qoorta xarig iskaa soo xira iridda meel yaroo kasoo bujina xarigna meeshiisa ugu soo dhiibaya hoyoon xarig ayuu qabanayaa kadibna wuu jiidayaa sidoo cabaar uu jiidaayo noosaan sidaas ayay nafta ugu baxaysaa kadib askartan ay soo ordayaan markay albaabka furaan waxay arkayaan noosaan inoo dhintay askartan meydkiisa soo qaadayaan dadka tuuladana waxay u sheegayaan noosaan in janaase aan loo sameey karin oona aan la duugi
joogi karin qofkii u sameeyay waa la dili doonaa Noosaan shaqaaladiisana koray ka fiirinaysay Noosaan oo meedkiisa la sii wado kadib askarta webiga ay ku tuurayaan Noosaan meedkiisa ayadana wax xasuusanaysa warqadii waxa la siiyay inuu ku dhahay markaan socodka bilaabayay ilaa hadda waa ila joogtay waxaadna ii ahayd saaxiibteeda iyo walaasheedii hooyadeeda oo kale adiga kaliya ayaa adduunkan kaaga tagay hadda kadibna aniga kaliya wadadii ku soconayo mustaqbalka haddaan mar kale dhalano waxaan rajaynayaa inaan mar kale ku saaxiibno oo nolol farxad badan aan ku wada noolaano kadib markay cabaar ooyiso kadib isdilaysaa buurta inay isku tuuraysaa iyona askartan ka baxaan webiga ayuu soo galayaa wuxuuna qaadayaa meedka Noosaan sidoo u duuga meedkiisa halkaas ayuu ku dhamaaday filimka ay laabina muuqaal la saartay saaxiibka cusub channelka haddaad tahay subscribe soo dheh